bishii November 27keedii baarlamaanka Soomaaliyeed waxay ansixiyeen guddi 18 xubnood oo guddiga doorashooyinka qaranka iyo suxdimaha labadii bishana waxaa la doortay gudoomiye aniga ah iyo ku-xigeen Saadiq Abshir Garaad kadib waxaan bilownay inaan diyaarino dhammaan xeerarkii loo baahnaa in lagu shaqeeyo ilaa 25 xeer gaaraya waxaan mideynay labadii hay-adood oo la mideeyay oo kala ahaa hay-adaha xuduudaha iyo tii doorashooyinka kadibna waxaan bilownay inaan isu diyaarino doorashada golaha deegaanka oo qaban doono bishii Juun ee sanadkan insha Allah taala hawshan halkaas ay maraysaa aad iyo aad waxaa jira diiwaan gelin sidoo kale aad wadaan marka ma ururadii siyaasadda diiwaan geliseen mise xisbiyadii ummadda kala saar sideedaba urur xisbi intuusan noqon xisbi koow wuxuu noqonaa urur soo noqdana waxaa loo baahan yahay shuruudaha ururka looga baahan yahayna qofku inuu soo buuxiyo ururku waa laga maarmaan markuu shuruudaha soo buuxiyo wuxuu noqonayaa urur rasmi oo shahaado sino markay tartamaana waxa ka soo bixi doona xisbiyadii dalka uu lahaa oo xisbi noqon doona insha Allah taala hotel sala socoto wadanka doorashadiisa ugu horeysa waa tan golaha deegaanka waxaana ka qaban doonaa 92 degmo ee dawladda Maxamed Siyaad Barre markay dhacday Allah u naxariisto dalku lahaa baan ku qaban doonaa sala socoto degmooyinka qaarkood waxay ku yaalaan Somaliland qaar waxay ku yaalaan Puntland bartamaha iyo koonfurtan waxa ku yaala degmooyinka ugu badan marka anagu meelahaas aan ka qaban doonaa ilaa 60 degmo ku dhawaad baan ka qaban doonaa golaha deegaan oo ah inay dadku doortaan dadka golaha deegaankooda ku mathali lahaa ayagoo xisbiyo ku socdo sala socoto Soomaaliya doorasho waxa ugu dambeysay 1969 waxa laga joogaa 55 sano qofkii qaangaarka ahaa 69kii oo 15 sano jiray wuxuu dhashay 1954 maanta waa 70 jir maalinna ma codaynin ma dooran ma aragta madaxda asaga hogaamin lahayd marka anagu ka waa gaari doonaa kan state-ka iyo kan federaalka waa gaari doonaa kan golaha deegaanka waxaan rabnaa in dadka Soomaaliyeed aan u fududeyno in dadkii deegaankooda iyo golahooda matali lahaa oo qashinka qaadi lahaa iskuulaadkooda iyo wadooyinkooda iyo nadaafadooda ka shaqeyn lahaa baan rabnaa inaan u fududeyno marka anagu goolkeena bishii Juun waa in la qabtaa doorasho golo deegaanada aan soo sheegno oo ka kooban Galmudug Hirshabeelle gobolka Banaadir Koonfur Galbeed Jubbaland qayb kamida iyo SSC Khartoum insha Allah taala Puntland iyo Somaliland already golo deegaan waa ka dhacay waa dhul Ilaahay u fududeeyay already doorashooyinka waa dhacay waxa u dambeeyay tii hadda ka dhacaysay Puntland deegaamadeeda waa ka wada dhacay sanadada uga dhaceen waan ugu hambalyeynayna haddana guddiga doorashada qaranka taas tin lamid aan qaban doonaa anaga ka qaban doonaa bartamaha koonfurta Soomaaliya insha Allah taala dabcan waxaa tiin guddigii labaad ee doorashooyinka heer qaran ah oo la dhisay marka guddigii in ka horeeyay idinka maxaad ka dhaxasheen oo shaqo ah oo jirta run ahaantii sala socoto guddiga ka horeeyay wuxuu dhisnaa 2015kii la dhisan uma filaya wuxuu soo shaqeeyay in ka badan 7 sano waxay soo qaateen tababaro fara badan waxaa la sameeyay capacity-gooda aad loo dhisay run ahaantiina shaqaalaha maanta noo jooga haddana guddiga doorashada badankooda waa shaqaalihii soo tababartay oo la maalgeliyay ama beesha caalamka maalgeliso dalka Soomaaliya dawladda Soomaaliya maalgelisay dad capacity loo fiican baan ka dhaxalnay runtii waxaan u arkaa aniga inay tahay dawladnimadu waa qor isku dhiib annagu kuwa naga dambeeyay insha Allah taala mar waxay naga dhaxli doonaa wax ka fiican laakiin waxaan qabaa guddigii hore shaqo badan ay qabteen waan ku mahadsan yahay